خيار ماشي بسكوت دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مجيء والي مع محمد تخل من كان قصة على البلدان لو هم اللي يجوا هرون صار نافنا وضدك الاستحريسين جرو الاسكود جرو وضدك اللي بالبلد جرو الركادي جري وعن كبحنا حلي وحن تاجنا هاي أن عالم كان قانون ما شهرنا أن مرنه بأنو تاجنا ما إن نسحقنا ونسقبصنا معها وإن هرمر يو محن قبصن كرنا يو محن تري كرنا إن دهنا معها ما إن ما في عنكم أنا هبونه عندي لا هذا نيك ودي هذا نيك عاي واتريه أمسك تو ما أنت زارها تقولوا بينهم كنا كانوا مدح ويني ودنا كحكومة يه هذيك الصوت في السنة سبنا قدونا إن شاء الله سان رجينا أيو مركب وحن كله لها صل كذا إذا كذا عيتنت يو دقن حماذا يفلق هذا أنا قاعدنا يقوم هذا ما نقانو كل يادون باقرنا يسا waxaan ku dhihi lahaa niyo raga iska dhig mar dambana waxaad suubisay ha u naqanin ka waantow ka toobadkeen dadka waxaad weydiisataa cafis ninka aad ku tilmaamaysa marxuuna hadda inta oo sano oo dawladda soo dhacday baa lagu soo gabagabay lagu soo istaagay maanta ma ahayn markuu naqday xamse inaad geed taabto oo walaal ka dhigato saxdabe nimankii la dhihi jiray rubhante waad u dhaqaaqi weys waxna waad u tiri weys ayagoo dagaal ku socdo ayagoo dib ku socdo waxba waad u qaban weyday laakiin maanta intuu ka dhaqayba meeshuu taagan yahay ka dhaqaaqayba wuxuu tagay halkaas wuxuu qabtayna waa loo wada jeedaa mid qarsoon ma aha mid uu ku dhaqaaqay oo dawladii Soomaaliya inta soo kaxeeyay buu isku keenay halkaas oo dadka ku calaamad saaray wax walba u qabtay hadda waa ragii kuugu dhawaayo kulaha dariska maanta waxa laga rabaa inaad dadka dariskaada oo heel kula qaraabo kula in xutarto inaad maanta ceytantaani kuma wadan daniyow inaad dadkaada raacdaan sugayay laakiin ma ina dhicin waa inaad sida ugu dhaqsaha badan jawaab baan ku ka sugaynaa inaad soo hadasho oo tiraahdo maanta ka bacdi u naqan maayo laga raali galin baan ka sugaynaa sida ugu dhaqsaha badan adoogo dadkii la gadgadan jiray oo Puntland laga dhoofin jiray oo inta Itoobiya laga soo kaxeeyay halkan markay diinta fidinayaan ama diinta u imaade iskuulada ama dugsiyada furayo gadan jirtay maanta laga tag ina adiga ku maamulo oo ani hoos fariisato baan sugayaa maanta ma aha inaad adiga maanta aad ku caytanto saddexdiis marka intaas aan ku soo koobayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.